صاحب هذا بيجك كعصب تحي نديريجي وده سبسكرايب لايك يا شير. بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتحنهني بقول كمية هلية يدا أمة إسلام كقيبتي لبعض وحن كسو قادن دون هلية كوبات أو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. الله يا مؤمنين توحي ديدين عدان أبو بكر هين سيدا وحي لرسولك إلهي محمد صلى الله عليه وسلم ورشها يقوم جرين إن مقعيدا كقران كتاب كان أكل هرمريو سيدا أي أكل فضل بدنيهين وجيدادو سيدا ما هين وحان مري ودوكالي أو إن آنان أفيرين حقا كلا هرينتا وقتيغا إيو غوبتا اسكدا إنان أفيريو حقا درجة إيو فضلغا كدي مركي آن كتاب كيغا كرهيب النبيادة إيو رسوشا أو مران لآن إيوغو أغسر ري آدنها أغونا فضل بدن أيا وحان غرتي إنان أكل هرمريو سيدا إلا قرحوناتا حتى هدي آن كهرمرينيو متكمدا بقولك هليي كوا كفضل بدن يهي إسلام كدحديسا لكن قلنك أيا كحشودي إن كتاب كان نوعا أو كلا أو كصابسن هلييدا إسلامك إن لغو بالله وعد عن أبو بكر هين رضي الله عنه واحد مودا إن أركيو رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم أو سارا قوشي أو كغيريودي وأمري إن أبو بكر إمام أمده النقضة إساقو أوله الله يا مؤمنين توحي ديدين عد عن أبو بكر هين sidaa daraadeed waxaa waajib ugu noqotay inaan Abu Bakar radiyallahu anhu ku bilaabo kitaabkan isaga ayaa ugu horeeya uguna fadli badan ummadda islaamka isaga ayaa ah qofkii ugu fadli badnaa marka nabiyada laga reebo isaga ayaa ah qofka ugu horeeya ee jannada gelaya nabiyada kadib wuxuu ahaa ruuxii ugu horeeyay ee qaaday shumicii tawxiidka ee anbiyadu ka tageen si uu ugu iftiimiyo mugdigii dunida bari iyo galbeedba wuxuu noqday ninkii ugu hormaray xanbaarida culayska dacwada islaamka ee loo wakiishay markii ugu horeysay taariikhda bani aadam caadiya oo aan nabi ahayn Abu Bakar waa saaxiibkii rasuulka Ilaahay sallallahu alayhi wasallam islaamka ka hor iyo kadib waa qofka kaliya ee Ilaahay ka soo doortay toddobada samo korkooda inuu noqdo rafiiqi rasuulka ee maalintii hijrada Abu Bakar wuxuu ahaa ninkii ugu horeeyay ee risaalada nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam rumeeya Abu Bakar ayaa ugu horeeyay 10 nin ee wax dhulka ku talaabsada ugu fadli badan marka nabiyada laga reebo Abu Bakar waa ninkii qolayska dacwada dhabarka u ritay maalintii uu islaamayba waxa gacantiisa ku soo islaamay 5 kamid ah 10ka iyaga oo nool jannada loogu bishaareeyay Abu Bakar waa hooyadan Aisha aabaheed Ilaahay raali ha ka noqdo labadoodaba Abu Bakar waa khaliifkii koobaad ee rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxa dhab ah in weynaanta Abu Bakar radiyallahu anhu iyo fadligiisu si muuqata u soo ifxaday islaamka kadib laakiin ma ahayn mid iska timid Abu Bakar radiyallahu anhu wuxuu kamid ahaa ragga Makka kuwooda ugu ikhtiyaarsan islaamka ka hor wuxuu kamid ahaa 10 nin ee loo xil saaray arrimaha Makka xilligii jaahiliga macnaha islaamka ka hor Quraysh waxay Abu Bakar u xil saareen arrimaha diyooyinka ama magaha iyo kafaalooyinka sidaa daraadeed waxa khasab ahayd qof walba oo Makka dhexdeeda doonaya inuu deyn ka qaato in Abu Bakar uu weydiiso inuu damiinto marka hore maadaama fadliga Abu Bakar uu ka qarsooneen qof muslimiinta kamid ah in la sheego fadligiisa oo dhan waa wax aan suuroobaynin sidaa daraadeed waxa ii muuqatay in aan ku soo koobo laba fadli oo kamid ah badda fadliyada Abu Bakar Ilaahay raali ka noqday hadii uuna Abu Bakar wax kale u qaban lahayn islaamka labadaas mooyee waxay ugu filaan lahaayeen inuu noqdo kan ugu sareeya halyeeyada islaamka ilaa maalinta laysa soo bixin doono ku fogaan mahayo dhinaca diineed ee ninkan waxa wax ka qoray rag aniga iga khayr badan wayna ka qori doonaan laakiin waxaan isku dayayaa inaan sheego sababta sareynta halyeeygan islaamka aniga oo ka eegaya dhinaca bani aadanimada inaan dhinacan ka eego ayaa u dhow dhexdhexaadnimada taariikheed inkasta oo aanan marnaba sheeganayn dhexdhexaadnimo taam ah aniga oo wax ka qoraya rasuulka Ilaahay sallallahu alayhi wasallam saaxiibkii fadliga koobaad ee Abu Bakar radiyallahu anhu waa abaalka uu ku leeyahay aniga adiga muslimiinta iyo bani aadamka oo dhan fadligaasi waa inuu noqday derbi adag oo hor istaagay in bani aadamku ku dhaco mugdigii jahliga iyo dib u dhaca kadib markii waxyigii cirku go'ay waayihii nabiyada iyo rusushuna si kama dambays ah u dhamaaday Ilaahay wuxuu nabiyada la soo diray inay dadka tawxiidka Ilaahay ugu yeeraan waayadii la soo maray oo dhan waxa rumeeyay cidii rumaysay waxaana gaaloobay cidii gaalowday laakiin badi kuwii rumeeyay nabiyada iyo ubadkooduba waxay ka leexdeen jidkii toosnaa geeridii nabiyada kadib waxayna bedeleen fariintii Ilaahay ogaal iyo ogaal la'aanba kadib markii ay lumeen
lumeen kutubtii asalka ahayd. carabta badankoodu mushrikiin ayay noqdeen geeridii nebi ibraahim sallallahu calayhi wasallam kadib, waxayna samaysteen sanamyo iyaga oo moodaya inay ilaahay u dhoweynayaan. kirishtankuna waxay caabudeen nebi ciise calayhi salaam markii ilaahay kor yeelay kadib. reer bani israa'iilna waxay caabudeen dibi muddadii 40 beri ahayd ee nebi muuse ka maqnaa. qoomkii nebi nuuxna waxay awliyada ilaahay ka dhigteen rabbiyaal ilaahay ka sokeeya, waxayna u sameeyeen sidaa ogaal ama ogaal la'aan, iyaga oo moodaya inay sidaa ilaahay ugu dhowaanayaan. haweenku waxay u yeeran jireen kuwa dhintay ilaahay sokadii, waxayna ka baryi jireen caruur inay siiyaan. ninkii murugooda wuxuu aadi jiray mid dhintay qabrigiisa si uu uga faydo murugada. dadka qaar sida ay xaqa uga fogaadeen waxay gaareen inay dawaafaan qubuuraha nebiyadooda iyo awliyada ilaahay ee saalixiinta ah. kolkaas ayay noqdeen maalinkaas kuwa gaalnimada uga dhow islaamnimada. maadaama risaalada nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam ay ahayd risaaladii ugu dambeysay ee bani aadamka loo soo diray, in risaaladaasi lunto ama la dooriyo waxay ka dhigan tahay mustaqbalkii bani aadamka oo lumay iyo jiritaankiisii. xaqiiqdii waxaa lagu sigtay in sidaasi dhacdo haddii aan ilaahay bani aadamka u soo saari lahayn nin magaciisa la yidhaahdo cabdulaahi bin cuthmaan abi quxaafa binu caamir oo reer tamiim ah, qurayshna kasii ahaa. waa ninka taariikhda ku galay magaca ah abubakar as-sidiiq. waxaa sidiiq loogu bixiyey inuu islaamnimada ugu soo hormaray iyo inuu isla markiiba rumeeyey dhacdadii dheelminta nebi muxamed sallallahu calayhi wasallam. geeridii rasuulka sallallahu calayhi wasallam kadib, oo ahaa saaxiibkii iyo ruuxdiisii, waxaa istaagay halyeyga weyn si uu muslimiinta ugu caddeeyo qaacidadii ugu weyneyd ee bani aadam barto. nebiyada gadaashooda qaacido mudan in lagu qoro biyo dahab ah. ninkii nebi muxamed caabudayow, muxamed waa dhintay. ninkii ilaahay caabudayow, ilaahay waa nool yahay mana dhibanayo. fadliga labaad ee abubakar radiallahu canhu, wuxuu isku mar duulaan ku qaaday kana guulaystay ciidamadii ruum iyo faris oo ahaa quwadihii adduunka ugu xooga badnaa. rasuulka ilaahi sallallahu calayhi wasallam wuxuu isku dayey intii uu noolaa inuu gaarsiiyo risaalada tawxiidka shucuubta caalamka oo dhan. dhab ahaanna wuxuu u istaagay inuu ugu yeero ummadaha islaamnimada isaga oo adeegsanaya hab nabadeed. wuxuu ergooyin u kala diray boqoradii dunida, isaga oo u sii dhiibay risaalooyin oo ugu yeerayo inay caabudaan ilaahay iskana daayaan adoonsiga dad. laakiin boqoradaasi islaamka waxay u arkeen inuu lid ku yahay dulmigoodii iyo u awoosheegashadoodii ummadaha taagta daran. waxay laayeen ergadii, waxay ka qariyeen fariintii islaamka shucuubtoodii ay daciifsadeen. waxay ku dhawaaqeen dagaal ay ku qaadeen rasuulka ilaahi sallallahu calayhi wasallam. boqorkii furus kisra ee isla weynaa wuxuu jeexjeexay risaaladii ka timid qofkii ugu fadliga badnaa dunida, wuxuuna u wakiishay ninkii u fadhiyey yeman inuu soo xiro rasuulka ilaahi sallallahu calayhi wasallam. boqorkii ruum ee heraqle wuxuu si dhab ah ula dagaalamay islaamka isagoo og runnimada nebinimada muxamed sallallahu calayhi wasallam, sida aan ku arki doono kitaabkan dhexdiisa. sidaa darteed abubakar as-sidiiq wuxuu u istaagay, ilaahay khayr ha ku abaalmariye, shaqo aan cid uga horeyn taariikhda halyeeyadii dhulalka furtay. sida la wada og yahay, waxaa jirta qaacido milatari oo sugan waayo hore ilaa maanta lagu barto kuliyadaha ciidamada casriga, taasoo ah ka fogow inaad hal furin dagaal, wax ka badan aad isku furto isku mar. naboleon wuu jabay kadib markii uu furin dagaal oo labaad ka furay ruushka. ciidankii hitler si xun ayuu u jabay kadib markii uu ku fikiray inuu furin dagaal oo labaad ka furo stalingarada bari. laakiin abubakar as-sidiiq wuxuu ahaa qofkii ugu horreeyey taariikhda dhulka ee jebiyey qaacidadan militari, isaga oo kula dagaalamay dhulka ciidamadii labadii boqortooye ee dunida ugu weynaa isku mar. kadib markii ay diideen boqoradii furs iyo ruum inay u ogolaadaan ducaadii islaamka inay u gudbiyaan risaalada tawxiidka ummadaha la daciifsaday, abubakar wuxuu dhaqaajiyey guutooyinkii nuurka oo badankoodu ahaa asxaabtii muxamed bin cabdulaahi sallallahu calayhi wasallam. wuxuu ku dumiyey qalcadii kisra ee furinta bari ciidamo uu hogaaminayey halyeygii weynaa ee khaalid bin waliid. sidoo kale wuxuu ku gariiriyey guryihii ruum ee furinta dagaal ee galbeed ciidan uu hogaaminayey halyeygii weynaa abu cubayda caamir ibnu jaraax. dowladii islaamku waxay noqotay dowladda ugu weyn dunida sannado yar kadib duulaankii abubakar isku marka uu ku qaaday labadii boqortooye ee ugu tunka weynaa caalamka. waxaa xusid mudan, abubakar radiallahu canhu ma ahayn qofkii ugu dambeeyey ee jebiyey qaacidadan milatari. waxaa si guul leh u jebiyey rag kale, dhammaantoodna waxay ka mid ahaayeen ummadda islaamka. arrinkaas oo noqday halxiraale ay furi waayeen aqoon
aqoon-yahanada taariikhda militariga. halxiraalahan sixirka ah ayaa sidoo kale u wareegay nin ka soo muuqday dhulka fog ee galbeedka islaamka 1300 sano kadib geeridii Abubakar as-Sidiiq. ninkaasi kuma ekayn inuu la dagaalamo 2 boqortooyo oo kaliya isku mar ee wuxuu la dagaalamay 3 boqortooyo ee caalamka ugu weynaa waqtigaas. waa kuma halyeyga weyn ee ay ummadda islaamku dhashay, kaas oo magaciisu astaan u noqday kacaanyahanada dunida oo dhan. sidee bay uga barteen kacaanyahanadii Aasiya, Afrika iyo Latin America macnaha halganka hubaysan? sidee bay ugu aqoonsadeen Fiitnaamiyiintu inuu yahay macalinkoodii dagaalkii ay kula jireen imberiyaaliyadda caalamiga ah? maxay ahayd qisadii dagaalkii Anwaal ee la yaabka lahaa maalinkaas oo shaki la'aan ahaa maalin ka mida maalmaha Ilaahay ee waartay? muxuu ahaa halxiraalaha telegaraamka sirta ah ee qarsoon ee ka soo gaaray xogayihii guud ee jaamacadda Carabta 1947 dekadda magaalada Cadan? la soco qaybta labaad.